iyagoo ku talinaya in aanay dhicin heshiisyadaasi imaaraadku oo la gelayo maamul goboleedyada dalka qaar ka mida oo kula wareegayo meelo ka mida meelaha istiraatiijiga ah ee Soomaaliya. ku dhawaad 400 oo ruux oo soo ritay xanuunka shuban biyoodka ayaa la dhigay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho muddo 2 toddobaad ah ayuu xanuunkan dadkan uu ku soo ritay Muqdisho iyo deegaanada ku dhow kuwa oo hadda lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho. abaarta safmareenka ah ee ka dilaacday wadanka waxa ay sababtay inay dilaacaan cudurro badan waxaana ugu weyn shuban biyoodka waxaana ka dilaacay deegaanada ee abaartu sida daran u saameysay gobolka Banaadir iyo gobolada la dariska ah ayaa kamid ah meelaha sida aadka uga jiro waxaana dadkaas la gaarsiiyay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir tirada 2 toddobaad ee la soo dhaafay la dhigay ayuuna maamulka isbitaalku ku sheegay inay gaarayaan ku dhawaad 400 oo qof guud ahaan bukaanadii la qabtay isbuuciyada la soo dhaafay marka aan fiirino isbitaal Banaadir la ildaran ama loo soo saxiyay xanuunkan shuban biyoodka dabcan waxay kor u dhaafayaan haddaan soo qaadan isbuuc ugu dambeeyay bukaanada isbitaalka soo gaaray waxay gaarayeen dad gaaray 197 isbuuci ka horeeyo kale marka aan fiirino waxay kor u dhaafayeen ama ay ahaayeen 191 marka waa dareemi kartaa bukaanada sida ay maalinta ka dambeysay ay u sii badanayaan ayagoo isku jira qaybaha kala duwan dabcan bulshada. dhanka kale maamulka isbitaalka ayaa sheegay in tiradaas soo gaartay dadka ugu badan ay yihiin caruur halka haweenku ay ku soo xigaan dabcan marka aad fiiriso xanuunkan dadka uu ugu badan yahay waa caruurta 2 sano ka weyn sidoo kale dadka ku soo xigaahi waa dadka waaweyn ee da'da iyo hooyooyinka uurka leh marka tirada ugu badan ee soo gaartay waa caruurta waxa ku soo xigay dadkaas aan sheegnay ee da'da dadka waayeelka iyo islaamaha uurka leh marka tiradana maalinta ka dambeysay sida aan ka arkayno statistics ama macluumaadka waxay muujinaysaa in bukaanadii ay dabcan aad u badan yihiin abaarta ka jirta dalka ayaa sababtay inay cudurradan dilaacaan gobolada dalka badankoodna waxaa ka dilaacay shuban biyoodka mana jiro gargaar muuqda oo wali dadkaas la gaaray qaybaha bulshada magaalada Cadaado ayaa bilaabay dadaalo lagu gurmanayo dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka oo kor u dhaafaya 140 ruux dad badan ayaa u dhintay cudurka shuban biyoodka meelo kamida gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxaana isbitaalka Cadaado oo kaliya la dhigay 140 ruux oo cudurkaasi uu soo ritay waa ay sii badanayaan dadka cudurka shuban biyoodka uu soo ridanayo deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud isbitaalka Cadaado waxa cudurkan loo dhigay muddo toddobaad in ka badan 140 ruux oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn oo ka kooban rag iyo dumar waxaana ilaa hadda u geeriyooday 5 qof sida maamulka isbitaalku ay sheegeen badankood dadkan waxa uu ku haleelay cudurka shuban biyoodku deegaanka Iidoole iyo tuulooyinka kale ee ku dhow halkaas oo laga soo daabuleeyay si loola tacaalo xaaladooda caafimaad guddiyo kamida dadka deegaanka oo iskood isku xilqaamay ayaa wada dadaalo lagu caawinayo dadka la xanuunsan cudurka shuban biyoodka ee isbitaalka la keenay iyo kuwa aan weli la soo gaarsiin si looga soo qaado deegaanada miyiga ay ku xanuunsanayaan deeq lacag oo laga soo aruuriyay dadka deegaanka ayaa guddigan isxilqaamay maanta gaarsiiyeen isbitaalka waxaana ka hadlay Aadan Cali Maxamed oo gudoomiye ah guddigan isxilqaamay waxaana u keenay lacag yar oo ilaa 27 milyan oo ugu talagalnay maxaa la yiraahdaa dadka shuban biyoodka ku dhacay inta taala in maaragtay loo qaybiyo inta xoogaa ka soo bogsatay xanuunkiina gaadiid lagu qaado lagu celiyo meelahoodii arintaas ayaan maanta u taaganahay dhibka jirana cidna loo sheegi maayo waa culays abaar iyo cudur dad ay isugu darsameen weeye waxaana arintaas wax ka qaban karo loo sheeganayaa allaha casaa wajalla Dr. Maxamed Cumar Yuusuf agaasimaha isbitaalka magaalada Cadaado ayaa sheegay in sii kordhayaan xaaladaha caafimaad ee ka jira deegaanka si gaar ah dadka la xanuunsan cudurka shuban biyoodka horeyna abaaruhu saameeyeen cudurku sidiisu xanuun badan yahay abaartuna sideeda xanuun badan tahay labadiina dad ay isugu darsameen waxaan leenahay intii soo kaalmaysay oo gargaarka dadkan ka soo qayb qaadatay oo ku mahadsan yihiin ilaahayna ajir ha ka siiyo inta soo socotana ha soo dhaqsadaan ha u soo dadaalaan dadkan waxa laga yaabaa wax aan sugi karin inay jiraan qofkii baahi caafimaad iyo baahi nololeedba ay jirto oo uu sugi karin ha u soo dhaqsadaan ayaan leenahay waxaan leenahay inta kale oo hadda qorshaha aysan ugu jirin markaan inay qorshaha ku darsadaan oo
subaxdii adiguna aad biyo nadiifa kor isaga shubto oo tubo isku shubto qofna uu oon u dhimanayo ama baahi u dhimanayo inaysan sax ahayn. bahda waxbarashada ayaa dhankooda wada dadaala gurmada waxaana ardada wax ka barata jaamacadda Simad qaybteeda Cadaado maanta isbitaalka gaarsiiyeen daawo. aadan cali maxamed waxa uu gudoomiyuu yahay ardada jaamacadda Simad Cadaado waxa uu ka hadlayaa dadaalada ay wadaan iyo cadadka daawada maanta isbitaalka ay gaarsiiyeen. waxa weeyaan in annaka waxaan nahay ardaydii jaamacadda Simad tiim yar aan nahay oo maaragtay meel yar ku wada nool meel wada jooga waxaana soo gaartay dhibaatadan maaragtay awal hore aan uga warqabnay haddana waxaa noo sii dheeriyay midda maaragtay cudurku keenay dadkii maanta la yaalyaalo ehelka ahaa oo dadkeenna ahaa waxaan samaynay waxaan isku xilqaadnay tabarteennu intay la eg tahayna waxay ka dhigan tahay maanta wax Cadaado ka jira iyo deegaanka maanta cudurku keenay. sidoo kale waxaan samaynay aan go'aan ku gaarnay inaan wax ka qayb qaadano falanbayaasha ugu horeeyaan qofka marka cudurku soo rito in lagu duro. dawladda waxay kooban tahay 240 120 cusba iyo 120 isku dara oo maaragtay falanba iyo maaragtay laba bukus oo maaragtay golofsidiya iyo waxaan ka soo gadnay iyo kun marowsiyaashaas aan ka soo dhignay marka waana wax yar maaragtay wax weyn maanta inaysan isbitaalka bedelayeen oo laga yaabaa. cudurka shuban biyoodka ee deegaana ka tirsan Galgaduud ku soo ritay ku dhawaad 150 ruux waxa uu sii kordhinayaa culeysyada ay keeneen xaaladaha abaareed ee ka jira deegaanka. Daahir Faarax Ahmed goobjoog Cadaado. hay-adda Save the Children ayaa waxay ka digaysaa qaladaadka gurmadka caalamiga ah ee ka imaanaya beesha caalamka si ay uga jawaabaan abaarta ka jirta Soomaaliya. madaxda hay-addan ayaa sheegay in beesha caalamka aysan waqtigii ku habboonaa ka jawaabin xaaladda abaareed ee ka jirta Soomaaliya taas oo ay u dhimanayaan dad badan. Save the Children ayaa ka digaysa mid la mid ah macluushii 6 sano ka hor ku dhufatay Soomaaliya oo ay sheegtay in saameynteeda laga dareemayo gobollo badan oo dalka Soomaaliya ah. beesha caalamka waxa ay mar kale ku celinayaan ayaa lagu yiri warkan Save the Children ay ka soo saartay xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya qaladaad ka jira gurmadka bini'aadanimada dalka. madaxa Save the Children Kevin Watnes ayaa ku sheegay booqasho 3 maalmood qaadatay oo ku tagay deegaanada Puntland in waxa indhihiisa qabteen iyo sida qorshaha gurmadka u soconayo ay yihiin kuwa aan islahayn. waxa uu sheegay in 100,000 kun oo dad Soomaali ah gobollo badan oo dalka Soomaaliya ay abaartu dhimanayaan kuwa oo u baahan gurmad degdeg ah. waraysi uu siiyay wargeyska Financial Times ayuu ku sheegay in deegaanada Puntland uu booqday dadku macluul ay wajahayaan haddii aan gurmad degdeg ah lala gaarin. wuxuu intaa ku daray in la ballan qaaday lacag dhan 450 milyan oo dollarka Mareykanka ah. waxa la yaabana ay tahay in ilaa iminka wax fikir aan laga haysan halka lacagtaasi ay ka imaanayso iyo sida lagu helayo. dhanka kale madaxa waaxda cunnada raashinka ku qaabilsan qaramada midoobe Soomaaliya ayaa isna ka digaya xaaladda bini'aadanimo ee dalka. uu sheegay in meelaha qaar dadka ay wajahayaan macluul. Within 6 months, people in this area and other parts of Somalia could be facing absolute catastrophe. 6 bilood gudahood dadka ku nool deegaanadan iyo kuwa kale oo dalka Soomaaliya ah waxay wajahayaan xaalad khatar ah. maanta 100,000 kun oo dad ah noloshooda waxay ku jirtaa khatar. dadku ma haystaan qarash, ma haystaan biyo, ma haystaan waddo iyo waxyaabihii kale ee nolosha aasaaska u ah sida caafimaadka. dadku waxay u baahan yihiin kaalmo degdeg ah. xooluhu ay ka dhamaanayaan iyaguna waxay ka hayaamayaan deegaanadii ay ku noolaayeen. dadkan waxay u baahan yihiin in si degdeg ah looga jawaabo dhibaatada haysata. abaartii Soomaaliya ku dhufatay 2011 ilaa 2012 ayaa waxaa ku geeriyooday sida lagu sheegay tirakoobka qaramada midoobay ay samaysay 260 kun oo dad ah markii beesha caalamka ay dhagaha ka furaysatay digniino dhanka bini'aadanimada oo ururada gurmadka ay ka soo saareen macluushii bariga ku dhufatay Soomaaliya. waa tahay daawadayaal warka Goobjoog TV ayaa daawanaysan si toos ah idinkaga imaanaya Muqdisho. imikana ciidamadii darawiishta Puntland ay ka gadoodsanaa mushaar la'aanta ayaa dib ugu laabtay xeryahooda kadib waanwaanha muddo qaadatay oo dhanka waxgaradku ay ku dhameeyeen tabashada ciidamada. saqdhexe xalay waxa ciidamadu ay fasaxeen gaadiid badan oo ku xayirnaa kontaroolada magaalada Garowe kuwaas oo doonayeen qaarkood inay gudaha magaalada ay soo galaan halka kuwa kalena ay doonayeen inay magaaladaasi ay ka baxaan. waxgaradka Puntland ayaa ku qanciyay saraakiisha ciidamada hogaaminaysay in ay heli doonaan xuquuqdooda oo ay u doodayaan balse aanay amniga qalqalgelin. ciidamada Puntland ayaa muddooyinkan dambe uga cabanaya mushaar la'aan
baahsan waxaana ciidamadan ay marar badan ay la wareegeen xarumo muhiim u ah maamulkaasi Puntland oo ku yaala magaalada Garowe ee xarunta maamulkaasi Puntland. dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in dib loo bilaabayo xoolihii Soomaaliya ay u dhoofin jirtay Sacuudiga. Safiirka Soomaaliya oo fadhiya Sacuudiga ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayaan isku dayo lagu doonayo in xayiraadda looga qaado xoolaha Soomaaliya ay u dhoofin jirtay Sacuudiga. Soomaaliya ayaa bilaabaysa inay dib ugu dhoofiso dalka Sacuudiga xoolaha iyadoo u marsiinaysa dalka Djibouti kadib markii uu Sacuudigu mamnuucay xoolaha Soomaalida dhamaadka sanadkii hore waxayna xilligaas dowladda Sacuudiga ku macnaysay in xoolaha Soomaalida ay soo wajaheen cudurro. Wargeyska Al-Wadan ayaa sheegay in maamulada Soomaalidu ay qaadeen tillaabooyin dhowr ah taas oo kor loogu qaadayo tayada maxjarrada xoolaha lagu baaro iyo in laga hortago dhammaan cudurrada ku dhaca xoolaha. Sacuudiga ayaa horey u joojiyay si ku meel gaar ah dhoofka xoolaha uga yimaada Soomaaliya. xilligaas sharaxaad dheeraad ah kama bixin Sacuudigu marka laga reebo inay ku tuhmeen xoolaha Soomaalida kuwa aan bad qabin. Safiirka Soomaaliya u fadhiya Sacuudiga Daahir Maxamuud Geela ayaa sheegay in dadaalada loogu jiro soo celinta dhoofka xoolaha Soomaalida ee ku wajahan dalka Sacuudiga uu ku dhow yahay miradhal dhawaana ay rajeynayaan in si toos ah xayiraad looga qaado. Sacuudiga ayaa ku sheegay in dekada Djibouti ay tahay tan ugu habboon ee laga dhoofin karo xoolaha geeska Afrika waxa ayna ku sababeeyeen in ay leedahay maxjarro horumarsan laguna baaro caafimaadka xoolaha soo galaya dalka Sacuudiga. Soomaaliya ayaa 80% leh tirada xoolaha sanad walba uu soo dhoofsado Sacuudigu. Watayda odayaal wararkii ciyaaraha ayaa noo soo socda balse dagaalka ka soconaya dalka Suuriya ayaa Mareykanku waxa uu sheegay inuu ciidamo Mareykanka u diray wararka noo soo socda ay kamid yihiin balse markaan xubintii dhaqaalaha iyo Ibrahim Shalare. kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada ganacsiga waxyaabaha aad ku daawanaysaan waxa ka mid noqon doona ganacsiga wadada Maka al-Mukarrama oo sii xoogaysanaya iyo waliba marsada magaalada Baraawe ee dib loo helkelinayo. waxaa soo badanaya ganacsiga wadada Maka al-Mukarrama oo tan iyo markii Muqdisho ay ka dhaltay xasilooni amni ay soo tarayaan xarumaha ganacsiga halkaasi ka jira. maalinba maalinta ka dambaysa ay soo badanayaan iyadoo lagu soo kordhiyay carwooyin laga helo dharka dumarka oo casri ah kuwa oo ilaa xilligii dambe ee habeenkii ay shaqeeyaan dadka taasoo dadka reer Muqdisho ay ku cusub tahay. Madiina Cali oo haweenka ku ganacsada wadada Maka al-Mukarrama ayaa sheegtay inay faa'iido weyn ku qabto ganacsigan isla markaana tahay hooyo caruur leh oo ilaa habeenkii ku gaarto goobteeda ganacsiga. hooyo sideedaba waa tiirka nolosha waaye waxaan haystaa caruuraan leeyahay oo aan anigu aan korsaday marka waxa igu dhaliyay inaan noloshayda si xal aan nadiif aan u raadsado go'aansada maadaama aan hooyo maanta caruurteeda korsata ah inaan shilinkayga xalaala oo aan shaqaysto oo nadiif ah ilaahayna aan kaashado. maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay dhawaan dib u howlgelin doonaan dekada magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wasiirka ganacsiga maamulka koonfur galbeed Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa sheegay inay rajo weyn ka qabaan in dekada magaalada Baraawe ay shaqadeeda dib u bilowdo sanadkan 2017. Wasiirka ayaa tilmaamay in horumar kasto ka socon lahaa wadanka saameyn ku yeesheen abaaraha ka jira wadanka taasoo keentay inay baaba'aan xoolihii wax soo saarkii dalagga beeraha oo yaraaday. sidoo kale wasiirka ayaa xusay in dhawaan la howlgelin doono garoonka diyaaradaha ee number Conton isagoo sheegay in hadda howlihii ay marayaan meel wanaagsan. Wuxuu hoosta ka xariiqay wasiirka in la dhameystiri doono lana bilaabi doono maalmaha soo socda. dhanka kale waxaa jira ganacsato ku nool deegaanada uu ka arrimiyay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo ganacsatada dhuxusha ah waxayna ka cabanayaan qiimo koror ku yimid dhuxusha. wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay in dhirta laga ganacsado aysan maamulkooda u arkin wax faa'iido ah isagoo uga digay ganacsatada inaysan xalufin deegaanka. waxaa jira ifaalooyin muujinaya in dib u soo laabanayaan kaabayaashii dhaqaale ee Soomaaliya waxaana dhawaan shaqo bilaabay dekada Hoobiyo oo aan shaqayn rubac qarni. hadda waxaa la filayaa inay dib u howlgeliyaan dekada Baraawe oo dhawaan shaqo bilaabi doonto. waa markii ugu horeysay burburkii kadib oo dib loo dayactiro taasoo la aaminsan yahay inay tahay mid ka mid ah horumarada dhanka ganacsiga ee uu wadanku ku tillaabsaday.
dagaalka ka soconaya dalka Syria ayaa Mareykanku waxa uu sheegay inuu u dirayo ciidamo Marines ah oo qayb ka qaata dagaalka ka dhanka kooxda Daesh. Washington ayaa sheegtay in 400 oo ciidamada badda ah oo u diray dalka Suuriya kuwa oo ka qayb qaadanaya dagaalka magaalada Riqa ee lagula jiro kooxdaasi Daesh. Wararku waxay sheegayaan in ciidamada maalmo ka hor ay gaareen dalkaasi halkaas oo ay ka samaysteen saldhigyo ay ka weerari karaan kooxda Daesh oo ku sugan meel 35 kiiloomitir u jirta halka ciidamadu ay degeen. Suuriya waxaa horey ugu sugnaa ciidamo Mareykan ah oo tababar siinayay ciidamada Kurdishka ah ee haysta taageerada dowladda Mareykanka. Waxaa la filayaa in ciidamada Kurdishka ay weerar ku qaadaan magaalada Riqa ee saldhigga u ah kooxda Daesh. Toddobaadkii tagay ciidamada garabka ka helaya waa ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ayaa la dhigay meel galbeedka uga beegan magaalada Riqa si ay u soo afjaraan isku dhaca ciidamada Suuriya iyo mucaaradka Turkiga oo taageero. Wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalkaasi Mareykanka ayaa daabacay in ciidamada Marineska ah ay ka duuleen dalka Djibouti iyaga oo ka degay dalkaasi Syria. Cornel John Dorian oo ah hafayeen ku hadlay magaca isbahaysiga caalamiga ah ee Mareykanka uu hogaaminayo ayaa sheegay in ciidamada sida gaarka ah u tababaran ay u tababaran yihiin agabka ay haystaana uu yahay mid casri ah taasoo suuro gelinaysa in si degdeg ah meesha uga saaraan kooxda Daesh. waqtigii madaxweyne Obama ee talada dalka Mareykanka ayaa ciidamada gaarka ah loo diray Suuriya si ay tababar u siiyaan ciidamada Kurdishka ah ee halkaasi ka dagaalamaya. Macda in arrintan ay kordhinayso faragelinta Mareykanka ee Syria, laakiin madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ballaarinayso dagaalka ka dhanka ah kooxda Daesh. wakaalada wararka ee AB ayaa daabacday in Trump uu doonayo in wasaaradda gaashaandhigga uu siiyo awood dheeraad ah oo ay kula tacaamusho goobaha dagaalka uu ka soconayo. Waxa iyana jira warar sheegaya in dowladda Mareykanka ay doonayso in 200 oo ciidamada gaarka ah inay dejiso dalka Kuwait si ay qayb uga noqdaan dagaalka ka dhanka ah Daesh. wararka kalena waxaa ka mid ah asaasihii Wikileaks shabakada lagu magacaabo ayaa sheegay in shirkadaha tiknoolajiyadda looga baahan yahay inay ka faa'iideystaan siraha bartaan ay baahinayso. madaxa bartaan ayaa sheegay in shirkadaha tiknoolajiyadda ay ka faa'iideysan doonaan xogaha qarsoodida ah ay u baahinayso taas oo ay ku tilmaamay in macno weyn ay ugu fadhido. Julian Assange oo ah aasaasaha bartan ayaa baahiyay kumanaan dokumenti oo ay lahayd hay-adda CIA-da Mareykanka, waxaanu intaasi ku daray in muddo kadib uu ku fikiray inuu uga faa'iideeyo xogaha uu hayo shirkadaha tiknoolajiyadda. waxa uu ballan qaaday inuu xogo intaas ka badan uu soo dayn doono waqtiyada soo socda uu ku tilmaamay kuwa ka muhiimsan inta hadda uu soo bandhigay. wakaalada wararka ee CIA ayaa sheegtay in ay bilowday baaritaano lagu ogaanayo xogahan iyo sida ay saameynta ugu yeelan karaan siyaasadda sirdoonka Mareykanka. shirkadaha tiknoolajiyadda oo ay ku jiraan Google iyo Apple ayuu sheegay inay horumarinayaan tiknoolajiyadooda waatayadooda ka hortaga si aysan u dhicin in loo soo duso xogahooda. asaasihii Wikileaks ayaa sheegay inuu awood u leeyahay helista xog walba oo ku jirta kombiyuutarada CIA-da, waxaana uu ka hadlay barnaamijkii ugu horeeyay oo uu adeegsaday baahinta sirta Mareykanka. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in asaasaha bartaan uu dambiile yahay, qasabna ay tahay in cadaaladda la soo taago. Julian Assange ayaa baahiyay xogo badan oo muhiim u ah saameynna ku leh siyaasadda dalkaasi Mareykanka. waa tahay daawadayaal inta ayaynu ku ekeenaynaa warkii Goobjoog TV aad ka daawanayseen oo si toos idinkaga imaanaya Muqdisho. anigu Cabdifataax Axmed ayaa idinla socodsiinaya wararkaas aad ku daawateen iyo kuwo kale oo dheeraada boggaanu internetka ku leenahay ee goobjoog.com ayaad ka daalacan kartaan. wixii war ay kusoo kordhana wararkeena dambe ayaa sidaas oo kale ku daawan doontaan. idina waad ku mahadsantihiin daawashada warkan. daawadayaasha kale ee bogagga internetka nagala socday Facebook uu ka mid yahay aad bay ugu mahadsan yihiin daawashada warkan iyo barnaamijyada kale ee Goobjoog ay baahiso. warkan warka xigeenteena dib ugu kulmi doonana qiyaartana daawanaysa nabadey.